Asalaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhammaan khiyaartayada hawada naga daawanaysay daawadayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijyadii aalaaba aad kala socon jirteen kanaalka SAS Software oo aalaaba aanu ku qaadaadhigno waxyaabaha ku saabsan tiknoolajiyadda iyo arrimaheeda. Barnaamijkeenu maanta waxa uu daaran yahay jiilkii u horreeyay ee aaladda loo yaqaano kombiyuutarka, ciddii dahfurtay, waddankii laga dahfuray, iyo shakhsiyaadkii ikhtiraacay. taariikhdu markay ahayd 1946 ilaa 1959 waxaa daah laga rogay jiilkii u horreeyay ee aaladda loo yaqaano kombiyuutarka. Wakhtigaasina waxaa loo bixiyay naanayso badan marka loo eego waxyaabaha uu ka koobnaa iyo ashiyada laga sameeyey, waxaana badanaa loogu yeedhi jiray vacuum tube ama electron tube. waxaana magacyadan loogu bixiyey waxaa ku badnaa ashiyaa u samaysan qaabka quraaradaha falaasadaha oo kale, kuwaas oo ka qayb qaadan jiray dabsiinta iyo isweydaarsiga dhugmantiyada ka dhex dhacaya kombiyuutarka dhexdiisa. Waxaa kale oo caalamku wakhtigaasi ogaadeen inuu kombiyuutarku fahmo oo keliya waxaan ka badnayn hal luqad oo ku micnaysto dhugmantiyada iyo xogaha ku kaydsan gudihiisa. luqadaasina waxaa loo yaqaanay binary language, waxayna ahayd mid ka kooban 1 iyo 0, waxaana micnayn jiray oo keliya khubaro khibrad iyo waayo-aragnimo u leh micnaynta luqadda binary-ga uu kombiyuutarkaasi isticmaalo. Waxaa kale oo jiilkii u horreeyay ee kombiyuutarku isticmaali jiray qaybta output-ka ee wax daabacda mashiin yar oo loo yaqaano punch card. Dhanka waraaqaha waxa uu isticmaali jiray waraaqa dhuudhuuban oo loo yaqaano paper tab, wuxuuna ku daabici jiray luqadda loo yaqaano binary-ga oo ay fahmi jireen shakhsiyaad khaas ahi. Jiilkii u horreeyay ee aaladda loo yaqaano kombiyuutarka waxaa la soo saaray dhowr model, waxaana ka mid ahaa ENIAC Electron Numerical Integrated and Computer, EDFAC Electronic District Variable Automatic and Computer, EDSAC Electron Delay Storage Automatic Calculator, UNIVAC Universal Automatic Computer. Isku dhiska jiilkii u horreeyay ee aaladda loo yaqaano kombiyuutarka waxay ka koobnayd vacuum tube, memory, punch card, paper tab, iyo CPU oo loo soo gaabiyay Central Processor Unit. Qaybta wax ku kaydiyana waxa ay ka samaysnayd magnet. Isku soo wada duuduuba kombiyuutarkaasi waxa uu kaga duwanaa kuwa maanta la isticmaalo. Waxa uu ku shaqayn jiray vacuum tubes, waxa uu ahaa mid aan la isku halayn karin, waxa uu ahaa mid luqad keliya taageera, waxa uu ahaa mid aad u qaali ah, waxa uu ahaa mid waxa la geliyo iyo waxa uu soo saaraaba aad u hooseeyaan, waxa uu ahaa mid xajmi ahaan ka weynka maanta la isticmaalo, waxa uu aad ugu baahnaa dab AC ah, sidoo kalena waxa uu soo saari jiray xaddi kul ah oo aad u badan, gaar ahaana marka lagu duubayo software-iska. Hardware technology. The first generation of computers started using vacuum tubes as the basic components for memory and circuitry for CPU, that is Central Processing Unit. The input to the computer was through punched cards and paper tapes. haddaba waxa iyana isweydiin leh kumuu ahaa shakhsigii aaladdaasi maskaxdiisa ka soo maaxatay. Inkastoo ay badnaayeen injineeradii wax badan ku soo kordhiyay jiilkii u horreeyay ee aaladda loo yaqaano kombiyuutarka, waxaase jira nin ku suntan kaalinta aabihii ikhtiraacay ee aaladda kombiyuutarka. waxa uu ahaa Charles Babbage oo ahaa nin wax ka yaqaan xisaabta, falsafadda iyo mechanical engineering-ka, oo u dhashay dalka England kuna dhashay taariikhdu markay ahayd 26 Disembar 1791, gaar ahaana caasimadda Ingiriiska waqti xaadirkan ee London. Charles Babbage waxa uu jaamacadiisii ka baxay Cambridge milaygii 1812 ilaa 1814. waxa ugu dambeyntii ku geeriyooday London, gaar ahaan Marylebone, taariikhdu markay ku eekayd 18 Oktoobar 1871. Intaasi waxaa inoogu dhan jiilkii koowaad ee aaladda loo yaqaano kombiyuutarka. Tan iyo intaynu ku kulmi doonno barnaamij noocan oo kale ah oo aynu ku falanqayn doonno jiilka labaad ee aaladda loo yaqaano kombiyuutarka. idil ahaan waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka. Asalaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.